waxaan rabaa halkan inaan uga sheego shacabka Soomaaliyeed inaan ka xumahay dhibaatadii dhacday ee lagu qalqalgelinaya amniga iyo nabadda magaalada Muqdisho gaar ahaan bishan barakeysan ee mudan xurmadda iyo cibaadada. waxaan farayaa cid walba in nabadda la wada ilaaliyo oo la wada dhooro bulshadana loo turo. ciidamada amniga waxaan farayaa inay gutaan waajibaadkooda qaran oo ay dhowraan amniga shacabka iyo ka hortagga khatar kasta oo dhibaato u keeni karta bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada magaalada Muqdisho. dawladdu waxay aaminsan tahay in wada hadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xallin karo. hawshaas oo aan bilaabay anigoo rajaynaya in aan ku guuleysan doono insha Allah. waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan waxgaradka culimada bulshada rayidka ganacsatada haweenka iyo dhalinyarada in aan ka wada shaqeyno xasiloonida iyo nabadgelyada dalkeena gaar ahaan magaalada Muqdisho. aad ayaad u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq.